ويا مرحبا بك يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. أصحابتا قيمها يقايح بدن كسو دوادا قيبتي أفراد ترتن كشنت حجو رمضان أو ترتن رمضانيت سومالي كان ugu culus internetka ku jiro. tartanku waa tartan habeenla ah oo bishan Ramadaan inta lagu jira dhan noo socon doona insha Allah. shan xujo iyo hal su'aal oo dheeraad ah oo kala faa'iideysi ah ayuu tartanku ka kooban yahay. waxaan marka koowaad inta aynan u gudbin su'aalaha qaybtan ka jawaabeynaa su'aalihii hore ee qaybtii saddexaad, sidoo kalena ku sheegaynaa magacyada dadkii saxay jawaabaha iyo dalalka ay kala joogaan. su'aalaha qaybtii saddexaad ee hore haddii aad rabtid inaad aragto linkiga hoose ee descriptionka videoga ku jiro riix oo halkaasi ka eeg. jawaabaha haddii aan usoo laabto, su-aasha koowaad jawaabteedu waa bisha Maarso. xarafka hore haddii laga jaro waxaa soo harayo ereyga aarso. su-aasha labaad jawaabteeduna waa bini aadamka. su-aasha saddexaad waa ratigu ma dhalo sababtoo ah waa lab. su-aasha afaraad jawaabteeduna waa imisa saac. su-aasha imisa saac haddaad weydiisid dadka, hadda qof weydiisid wuxuu kugu jawaabaa, hadhow haddaad weydiisid wax kale, hadhow wax kale. waa su-aal mar walba qofkaad jawaab ka helaysid, dadkana jawaabo kala duwan ka helaysid. su-aasha shanaad jawaabteeduna waa daruuraha ama caadka amaba xataa roobka dhaha. intuba waxa waaye luga la-aan ayay socdaan, sidoo kalena indha la-aan ayay ooyaan. su-aashii dheeraadka ahaydna jawaabteedu waa haddii aad rabtid inaad whatsappkaaga kombiyuutarka ku xirato, waxaad furaysaa browserkaaga, waxaad booqanaysaa webka web.whatsapp.com. waxaa kuu soo baxayo QR code ama barcode. kadib waxaad furaysaa whatsappka taleefankaaga, waxaad riixaysaa meesha saddexda dhibic ah ee iskor saaran ee kor ka muuqato. kadibna waxaad riixaysaa whatsapp web. halkaasi waxaa kuu furmayo kamera yar, waxaadna ku sawiraysaa QR codekii uu browserka kombiyuutarkaaga kuu soo saaray. sidaas ayuuna whatsappkaaga taleefanka kugu jiro kombiyuutarka kugu xiriirsamayaa. dadka jawaabaha saxda ah bixiyey magacyadooda iyo dalalka ay kala joogaanna shaashada ka eeg. intaasi waa jawaabaha su'aalihii qaybtii hore. qaybteena afraad haddii aan u gudubno, inta aanan su'aalaha soo bandhigin, xusuusnow qofkii jawaabaha saxda ah haya jawaabaha iyo magaciisa iyo dalka uu joogo videogan hoostiisa commenti ahaan ha ugu soo qoro. qaybta xigta ee shanaad ee berit soo geli doonta ayaan ku sheegi doonaa magacyada dadka furay xujooyinkaas iyo dalalka ay kala joogaan insha Allah. sidoo kale kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh, waad mahadsan tahay. su'aalaha qaybtan afraadna waa sidaan. su-aasha koowaad, waxaad sheegtaa wax hawada sare iyo cirka laga helo oo haddii af Soomaali ahaan xarafka koowaad laga jaro noqonayo cayayaanada ka mid ah. su-aasha labaad, waxaad sheegtaa wax aanan soconaynin ilaa aad madaxa ka garaacdo maahee. su-aasha saddexaad, sheeg wax gurigaaga intay kaa wado goobta shaqadaada ama goobta waxbarashadaada ku geynayso ayadoonan meesheeda ka dhaqaaqin. su-aasha afaraad, waxaad sheegtaa kelimad aad adiga iyo qof walba mar walba aad qalad ugu dhawaaqdaan. su-aasha shanaad, waxaad sheegtaa wax hal il leh balse hashaasi il aanan wax ku arki karin. su-aasha dheeraadka ah ee kala faa'iideysiga ahna waxaad sheegtaa waa maxay webka ama appka Quora, maxaase loo isticmaalaa. qaybta afraad intaasi ayay ku eg tahay. wixii jawaabo ah ee sax ah ee aad haysid isla videogan hoostiisa qaybta kommentiyada kusoo qor magacaaga iyo dalka aad joogtidna soo raaci. videogana share dheh adigoo mahadsan. insha Allah berito ayaan qaybta shanaad ee tan xigta ku sheegi doonaa dadka jawaabaha saxda ah bixiyey magacyadooda iyo meelaha ay kala joogaan. kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh, soona dhawow. dhammaantiin khayr badan iyo Ramadaan suuban ayaan idin wada rajaynayaa. waa Axmed Kediye oo idin wada salaamayo. ciao.